بسم الله الرحمن الرحيم ساكا waxaan iskugu yeeray warsaxaafadeedkan asagoo qoraal ayaan idin aqrinaya bismillaahir rahmaanir rahiim warsaxaafadeed uu soo saaray mudane Senator Cabdi Xasan Cawaale qaybdiid oo ka soo maanta oo ay taariikhda bishaas saddexdii bishii 2018 anigoo Senator Cabdi Xasan Cawaale qaybdiid أنا حبين كترسن أغل كسرة برلمان كفدرالك الصومالية أنا قدوميها قدقة دبوجد يلا صعدك تستورك الله وضع أغل وعن هل كان كور قلنا يا برلمان كفدرالك الصومالية هي شعبك الصومالية هي باش عالم كبا إن صدم كي بشي ديسمبر لبكوني تضبية طبعا مركز ساعدوا هاي كودي دور نمو أي إن أي سشر الدراء هي حد جذب أي أصو وررين جوريجا إذا ما لقصو أمري دكتور توبركا جنرال جوردن أو أي ما مشوا دولة الإمارات كا كون ياله دقمة هودن يجو كاشان عيدا كاسي عيدا كنا بتسجد غران كنيسة قبل كبراندي دعوة فوشهم حنون كبدني أو يشدد هاي إن ليجو خارجية نفط إذا ليجو ديلو لكن إلهي أمر كيس عن وجبت بعدي هذا يا شيء waxay igu reebtay murugo xoog leh iyo argagixin loo geystay qoyskayga iyo caruurtayda waxaana dhaawac culus ka soo gaaray weerarkaas sarkaal ka tirsan ciidanka booliiska Soomaaliyeed oo kamid ah ilaaladayda laguna magacaabo Xidigle Saciid Xuseen Xursi ilaa haddana isbitaal ku jira marka aan soo gaaray gurigaas saacad kadib dhacdadaas waxaan la kulmay shacab caraysan ama ka kacdoonsan weerarka guracan ee gurigayga lagu soo qaaday anigoo ah oday Soomaaliyeed kaashanaya waaya aragnimadayda dhowrayana xasiloonida iyo deganaanta dawladnimo haykalka siyaasadeed iyo midka xileed ee aan u hayo qaranka intaba waxaan go'aansaday in aan ka hortago qalalaasahaas saameynta weyn ku yeelan karay bulshada magaalada Muqdisho isla markaasna fursad aan u siiyo madaxda qaranka iyo hay'adaha dawladeed ee ay qusayso baarista iyo go'aanka gaaridda cidda ka dambeysay weerarka laygu soo qaaday sidaas daraaddeed waxaan marka hore ugu mahad celinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha mudane Xasan Cali Khayre oo si degdeg ah uga muujiyay dareen falkaas dambiyeedkaas uga muujiyay igana soo tacsiyeeyay una magacaabay guddi baara weerarkaas laguna soo qaaday aqalkayga waxaase nasiib darro ah in 33 maalmood kadib aysan ka soo bixin wax tallaabo sharci ah oo laga qaaday weerarkaas saraakiishii mukhaadaraadka imaaraadka oo fulinayay gurigayga weerarka lagu qaaday ayagoo adeegsanayay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo ay tababareen gacantana ku hayaan isla markaasna kaashanayeen ciidanka nisa ee gobolka Banaadir haddaba maadaama lagu xadgudbay
karaamadaydii iyo xasaanadaydii dastuuriga ahayd welina aan dareensanahay in ay jiri karto khatar igu wajahan naftayda iyo qoyskaygaba qof kasta oo madaxda qaranka qof kasta oo madaxda qarankana ay ku imaan karto ee dowladda federaalka ka mid ah xil kasta oo dowladda federaalka dowladda federaalkana xil ka saaran yahay dhowrista amniga iyo xasiloonida dhammaan shacbiga iyo muwaadiniinta Soomaaliyeed waxaan ka codsanayaa xubnaha baarlamaanka federaalka oo ka kooban labada aqalka sare iyo golaha shacabka iyo gudoonkooda inay guddi u saaraan golayaasha si ay u soo hordhigaan arrintan horseedi karta khatar ku wajahan jiritaanka qarannimada Soomaaliyeed maadaama ay caddahay in ay jirto faragelin qaawan ee shisheeye ee keeni karta burbur iyo xasilooni darre qaranka ku keeni karta wabillahi tawfiiq wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh